Warahmatullahi wabarakatuh. Maanta waxaan suubsanaynaa keeg aad u macaan badan. Xagga waxaan ku haysanaa caano, subag, heel. Xaggana waxaan ku haysanaa custard, baking powder. Bakeeriga waxaa noogu jiro waa sokor. Waxaan kaloo haysanaa 3 xabo ukun. Insha Allah marka aan isla suubino. hal qaado oo ku darsanaysa asagna wax yar ayaad markaas dhex gelinaysaa. haddana waxaan ku darsanaynaa hal qaado oo bakin ah. waxay u dhigmaan hal bakeeri isla bakeerigaas aan ku isticmaalayo. insha Allah marka aan walba haystid insha Allah waad ku darsan kartaa, waan isticmaali kartaa powder ha aadaan, caanaha boxga ha aadaan. insha Allah marka aan walba haystid waad inaad ku darsataa. isagana waxaad ku darsanaysaa hal qaado isla meeshii kadib waxaad ku darsanaysaa marka waa subag ama saliid hal bakeeriga halfkiisa oo yar.
bakeerigaas buuxo iyo halfkiisa ayaad ku daraysaa insha Allah. kadib waa isdhexgelinaysaa. markuu si fiican isku dhexgalo ayaan furunka gelinaynaa. marka waxaan usoo soojistay mamacaan oo ay kora mamacaanka u shubanaysaa. haddaad rabin mamacaanka la-aantiis waad cuni kartaa. marka mamacaankan kon ugu darsanaynaa. kadib maasha Allah natiijadiisa waad arki doontaa haddii aad samaysid ama haddii aad soo tijaabisid insha Allah. waad dhexgelinaysaa mamacaanka. kadib waxaan kusoo daray kor strawberry-ga markana la arka natiijadiisa maasha Allah. dhexdiisa jilaac isaga dhamaad jilaac macaanka hadaa cuntid waad dareemaysaa. marka kolley qofkii tijaabi leh dareemi karo macaankiisa iyo natiijada siduu kusoo baxay. marka insha Allah waxaan leeyahay asxaabta haddaad ka heshay comment, like, subscribe, share waxgiina insha Allah. haddii aad ka heshay mise aad soo tijaabin doontid comment-ka hoos igu reeb insha Allah. waxaan leeyahay sidaas iyo video kale cusub insha Allah. maca salaama.